musuq maasuqa waa cudur bini aadanka cudurku wuxuu xaliyada waa kansarka waa ka daran yahay maxaa yeelay kansarka hal qof kaliya dilaa laakiin musuq maasuqa society oo dhan uu dilaa sooyaalka taariikhda xun ee musuqa dalkeenu waxa uu dhibaateeyay dhaqaalihii dalka waxa uu ragaadiyay horusocodka nidaamka dawladnimo ee curdan ku ah Soomaaliya taasoo sababtay in kaalmaha hore ee Soomaaliya ka soo muuqato dalalka ugu badan ee uu ka dhaco musuq maasuqa dunida si taasi looga gudbo dawladda Soomaaliya waxay xoogga saartay sidii meesha looga saari lahaa dhaqanka foosha xun ee musuqa uu leeyahay waxyaabaha ceebta inagu ah ee Soomaalida ceebta ku ah waxa kamid ah in sanado badan oo xiriir ah sanad walba la inagu tilmaamo inaynu nahay dalka dunida ugu musuq maasuqa badan wax runtii ceeb weyn bay nagu tahay waxana weeye waxay mudan tahay qof kasta oo Soomaaliya in ay damaqdo dadna uu dareensanaado xil iska saaro ahmiyad weyn siyaasnimada ummadda Soomaaliya sharaf darrada iyo sumcad darrada iyo karaamad darradaas iyo liidnimada ay uga bixi kartaa way noqon kartaa ummad ka xor ah musuqa ummad ka xor ah wax isdabamarinta hay'adaha garsoorka dalka waxay lafdhabar u yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa soo celinta cadaaladda iyo sinaanta ayagoo dadka ku haga ku hogaansanaanta dhabaha suuban ee shuruucda dalka uu leeyahay dawladda Soomaaliya waxay xoogga saartay in la nidaamiyo hanaanka shaqo ee hay'adaha garsoorka dalka waxaa sidoo kale jira tababaro joogto ah oo la siiyo shaqaalaha ka shaqeeya hay'adaha garsoorka dalka kuwa oo isugu jira tababaro aqoon kororsi ah iyo kuwa kor loogu qaadayo xirfadaha ka shaqeynta goobaha dadka cadaaladda ay u soo raadsadaan maadaama garsoorku uu u baahan yahay tayeen iyo horumarin madaxda garsoorku waxay gaartay go'aan ah in bal horta ay qiimeeyaan shaqaalaha ay haystaan tayadooda iyo aqoontooda halka ay gaarsiisan tahay kuna qiimeeyaan cid walba aqoonteeda iyo kartideeda waxaan ballan qaadaynaa inaysan dhici doonin cid la dulmiyo waxaan ballan qaadaynaa inaysan jiri doonin hadduu alla idmo in shakhsi si gaara loo bartilmaameedsado wax kale ma ahayn waa tayeyntii shaqaalaha garsoorka waa mahadin doonaan aan isleeyahay shaqaaluhu ciddii u baahan aqoonteeda in kor loo qaado ciddii u baahan seminaaro in la siiyo cidda u baahan inay cid mudnaan lahayd inay dallacdo oo aan dallicin waxaa laga yaabaa inuu qofku ku shaqeynayo 10 sano grade B ah uu ku shaqeynayo haddana uu yahay master degree marka waxaan rajeynayaa inay mahadin doonaan hadduu alla idmo waxa loo socdo waxa weeye bulsho Soomaaliyeed oo banaanka naga eeganaysa oo isha ku haysta ayaga aan bixinayno oo nagu qiimeynaysa dadka noo jooga noo ay yihiin baa banaanka noo jooga xafiisadeena anaga garsoorkana lagu aaminay garsoorkuna waa ubuucda iyo halbowlaha iyo wadnaha marka laga hadlayo dawladnimada marka haddii aan dawladda aan ka shaqeynayno oo aan ku fikirayno macnaha inay noo hagaagto oo qof kasta uu cadaalad helo waxay ka bilaabataa hooyo aabbo waxa weeye meesha aan ka shaqeynayno gobolka Banaadir waxa uu fariisanaysaa kiis dacwadeedka ciqaabta 148 fadhigii 10aad bartamihii sanadkan maxkamadda gobolka Banaadir ayaa qaaday dacwado la xiriira falal musuq maasuq ah oo loo haystay shaqaale ka tirsan ilaa 3 wasaaradood iyo mid kamid ah hay'adaha dalka kuwa uu xafiiska xiriiraha guud ee qaranka uu ku soo eedeeyay lunsashada lacago kala ah $476,526 oo lagu eedeeyay in lagu lunsaday magaca wasaaradda caafimaadka 247,000 oo la sheegay in lagu lunsaday magaca wasaaradda kalluumaysiga iyo sidoo kale xafiiska xisaabiyaha guud oo la sheegay in lagu lunsaday magaca lacag gaaraysa $57,000 iyo sidoo kale sargaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo lagu eedeeyay ku daneysasho xafiis dawladeed mudanayaal waxaan ka wadaa oo aan rabaa inaan maxkamadda u iftiimiyo in shirkadaha ganacsiga ee saxda ah dukumentigooda kuwa been abuurka kulli lagu sameyn jiray kombiyuutarro uu saldhig u yahay oo asaga iyo kuwa kale
maxkamadda gobolka Banaadir oo dhageysiga dacwadan waday muddo ku dhow 4 bilood ayaa waxa ugu dambeyn dambiye ay ku heshay 9 kamid ah eedeysanayaasha kuwa oo lagu kala xukumay xukunno u dhaxeeya kuwaas oo lagu kala xukumay 18 sano oo xarig ah iyo sidoo kale 1 sano iyo 6 bilood oo xarig ah. maxkamadda gobolka Banaadir waxay sidoo kale amartay in qasnada dawladda lagu celiyo lacago dhan $137,907 iyo sidoo $58,505. waxaa sidoo kale dacwadahaasi ku jiray dad ganacsato oo loo heystay inay sameysteen shirkado been abuur ah oo ay ku dhacayeen lacago ay lahayd dawladda Soomaaliya iyo isla markaana ay sameysteen qaarkood bangiyo aanan sharci ahayn. xukunadaasi qaarkood ayaa waxaa loo ogolaaday inay ka qaataan racfaan. waxa uu xafiiska dejiyay istaraatiijiyad taasoo ujeedadeeda ahayd inay hiigsato xoojinta sareynta sharciga iyo sare u qaadida tayeynta adeegyada uu bixiyo xafiiska. waxa uu xafiiska tayeeyay unidiyada la dagaalanka musuqmaasuqa oo kadib cadeymo xoogan oo xafiisku xeeraryaha guud ee qaranku u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir. waxaa xukunno lagu riday eedeysanayaal gaaraya 9 eedeysane oo ka mid ahaa 15 eedeysane oo loo qabtay kiisas kala duwan oo xafiisku uu wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dawladda dad ka tirsan lagu eedeeyay musuqmaasuq. waxa uu markii ugu horeeyay xafiisku uu qasnada dawladda xukunnada marka la raaco xukunnada iyo maxkamadaha ka soo baxay ay u celinayeen qasnada dawladda lacago kala duwan kuwaas oo noqonaya intii burburkan aan ku guda jirnay in inta qof musuqmaasuq lagu helo lagu xukumo inuu qasnada dawladda lacag ku celiyo. waxaa sidoo kaleeto xukunnada ku jiray ganaaxyo iyo in laga joojiyay dadka ku eedeysnaa oo maxkamadda ay xukuntay in xafiis dawladeed ay qabtaan maxaa yeelay waxa uu xeerka ciqaabta ku xukumayaa qofkii dambiyada heerkaas gala inuusan xafiis dawladeed uusan qaban karin ama si joogto ah ama si aan joogto ahayn. si loo abuuro jawi isfahan ah oo u dhaxeeya bulshada Soomaaliyeed iyo shaqaalaha ka shaqeeya adaha garsoorka dalka waxay madaxda xoogga saarayaan in la soo celiyo kalsoonida bulshada iyo in fursado la siiyo dhalinyarada aqoon-yahanada ee wax u bartay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed filasho weyn bay naga qabtaa inay naga hesho cadaalad, inaynu ugu adeegno si hufnaana, inaynu ugu adeegno si alla ka cabsi leh, inaynu ugu adeegno inta awoodeenna si sinaana oo aynu siino fursadaha siman isla markaana ay naga helaan cadaalad ay mahadiyaan. taa haddii la naga helo waxay iyaduna soo noqonaysa kalsoonida lagu qabo garsoorka dalka. san hore u sheegay awoodda uu garsoor leeyahay iyo hubka ugu weyn uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida bulshadiisa weey. marka haddii markaasi cadaalad aynu u adeegno waxaynu soo celinaynaa kalsoonida ummaddu ay ku qabto garsoorka, taasina waxay awood siinaysaa garsoorka. marka waxaan rajaynayaa intiin halkan fadhida iyo inta kale naga maqan inaad noqotaan ciddii soo celin lahayd kalsoonida garsoorka lagu qabo, ciddii soo celin lahayd sharaftii iyo karaamadii uu garsoorku lahaa. garsoorkuna sidii halkan laga wada sheegay dawladnimaduba waxa weeye waa garsoor weyn. inkastoo musuqmaasuqa ay dunida oo dhan dagaal xoogan kula jirto sidii loo ciribtiri lahaa waxaa dawladda Soomaaliya ay dadaal xoog leh ku bixinaysaa in laga sifeeyo guud ahaan dalka oo idil. dawladdu waxaa ka go'an in wax walba oo musuq iyo musuqmaasuqa taabanayo inay la dirarto. go'aano cad ayayna madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha uu ka soo saaray maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ra'iisul wasaarahana dhowr jeer ayuu arrimahaas uu ka hadlay. xukuumaddana guud ahaan inay la dirarto musuqmaasuqa ayaa ka go'an. waxaana aad loo hagaajinayaa dhammaan hay'adihii la dagaalami lahaa iyo shuruucdii loo kaashan lahaa ciribtirkiisa. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.